بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قارئة أهواء سلامي سلام كدب maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago ciwaanka ah sidee ayaad u noqon kartaa hooyo wanaagsan isla markaana tusaale u ah caruurteeda. Si aad u noqotid hooyo wanaagsan marka ugu horeysa waxaa lagaaga baahan yahay inaad ahaatid qof aad u baraarugsan kuna baraarugsan waxyaabaha reeraheeda ka dhacaya. insha Allah waxaa idin wadaagi doonaa dhowr qodob oo aan isleeyahay haddii aad dhaqan gelisaan wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan. qodobka ugu horeeya waa inaadan ahaanin qof nervous ah mar walba ku qayliya caruurta canaanta. taas bedelkeeda waxaa adeegsan kartaa in aad si degan ula hadashid isla markaana aad u cadeysid qaladkii uu galay si uusan mar kale ugu laaban. mar walibana waxaa ogaataa ilmaha la canaanto lagu qayliyo la caayo hadhow markii ay weynaadaan saameyn adag ayay ku yeelanaysaa oo wuxuu noqonayaa qof cabsada xaqiisa aan dhacsan karin dadka hortoodana aan ka hadli karin. qodobka labaad waa inay ahaatid qof aad u sawir badan oo mar waliba aa xaalad kala gashid ama aa xanaaqdid aa soo xasuusataa mihnada barbaarinta inaysan ahayn mihnad fudud haddii aad wanaajisidna ilaahay subxaana watacaala uu kaa abaalmarin doono. saddexaad waa in aad ihtimaam siisaa waxyaabaha caruurtaada ay jecel yihiin haddii aysan ahayn markaa wax xun oo aad u ogolaataa. qodobka afaraad waa inaad isbuucii mar ka bixisaa xaafadda oo aad geysaa meelaha caruurta ay ku ciyaaraan ama loo soo dalxiisto oo ay dadka isugu yimaadaan. qodobka shanaad waa inaadan ku gacan adkaanin caruurtaada sidaa markaa leenahna micnaheeda ma ahan in wax walba uu kaa dalbado aad siisid wax walba uu kaa dalbadana aad u diidid, laakiin waa inaad siisaa waxyaabaha ay tahay in la siiyo waa inaad u diidaa waxyaabaha ay tahay in loo diido. qodobka lixaad waa in aad waqti la qaadataa caruurtaada una sheekeysaa mar waliba oo aad waqti wanaagsan la qaadatay caruurtaada waxaa wanaagsanaanaya xiriirka idinka dhexeeya. toddobaad waa in aad si wanaagsan u dhageysataa caruurtaada xataa haddii aysan ku cajabin waxyaabaha uu kaala hadlaayo isla markaana aad uga wada jawaabtid dhammaan su-aalaha uu ku weydiinayo. taas ilmaha waxay ku beeraysaa kalsooni iyo inuu dareemo inuu yahay qof ihtimaam la siinayo. sideedaad waa inaad ka cudur daarataa markii uu qaladkaa dhaco haddii aad ku adkeysatid qaladkaada waxaa ka dhalanaysa iyagana inay ku adkeystaan qaladkooda. qodobka sagaalaad waa inaad ku dadaashaa sidii aad ku noqon lahayd hogaamiye wanaagsan gurigaaga dhexdiisa. qaado go-aan adag xilliyada ay tahay in la qaato go-aan adag. dabacsanaaw oo jilicsanaaw xilliyada ay tahay in la dabacsanaado. sidaas darteed waxaad u baahan tahay habdhaqankaada oo dhan inaad ku salaysid qaab caqliyeysan. mar waliba oo aad ahaatid hooyo wanaagsan waa mar waliba oo aad ahaatid sawjo wanaagsan. ayuu ku egyahay cashirkeeni aan uga hadlaynay sidee ayaad u noqon kartaa hooyo wanaagsan. insha Allah cashirka xiga wuxuu noqon doonaa qaababka ilmaha loo ciqaabo iyo qaababka